horteeda waxaa yaalay waxaan aaminsanaa furaha hodannimada iyo guusha. Si lama filaan ah ayaan hoon baabuur ugu maqlay gadaasheeda, waanan argagaxay. wiil da'deeda lamida ayaa watay gaarigan qaaliga ah, misena waxaa dhinaciisa fadhiday gabar aad u qurux badan. wuxuu igu qaylinayay inaan jidka ka baxo. waxaan ahayn isku da' laakiin nolosheenu aad bay u kala duwanayd. isaga wuxuu watay gaari qaali ah, wuxuuna ku noolaa guri weyn. aniguna waxaan qaadaa barafka si aan nolol u helo. xilligaas qalbigayga waxaa ka buuxay ciil iyo caro. markaasi ayaan arkay wargeys dhulka yaalay. wuxuu ka hadlayay nin iskiisa isku dhisay oo noqday bilyaneer sida anigoo kale weligiis iskuul ma dhigan, inkastoo dhibaatooyin badan soo mareen wuxuu noqday bilyaneer. sheekadiisu si weyn ayay ii dhiirigelisay. waxaan nafteeda ula balamay inaan si adag u shaqeeyo oo noqdo nin maalqabeen ah oo guulaystay. maalin ayaan ka sarmari doonaa carruurtii taajiriinta ahayd oo ii siisay. magacaygu waa Reed. kadib maalin shaqo oo dheer ayaan guriga ku noqday. cuntada keliya ee isugaysayna waxay ahayd harharaagii ka haray baaquliga. markaas ayaan maqlay hooyaday oo xanuunsan oo qufacaysa. xaaladeeda caafimaadna mar kale way sii xumaatay. waxaan aabahay weydiiyey sababta uusan daawo ugu iibin hooyaday. jawaabtana mar walba waxay ahayd isku mid, lacag ma jirto. waxaanan eegay walaalahayga yaryar, mana aanan la hadlin. markii habeenkii la gaarayna waxaan isku diyaariyey inaan guriga ka tago. waxaan markii ugu dambeysay eegay walaalahayga oo si degan u hurda. kadibna si tartiib ayaan ugu dhaqaaqay sariirta hooyaday. hooyadayna waxay taageeri jirtay go'aan kasta oo aan qaato. waxay dareemaysay inay caqabad ku noqotay horumarkayga iyo mustaqbalkayga. indhaheed waxaa ka muuqday qoomamo, jacayl iyo naxariis. waxaan ku yidhi waan ku jeclahay. waxay igu tiri aniguna waan ku jeclahay. markii aan macsalaameeyey hooyaday waxaan guriga uga tegay qalbi culus. waxaan ka tegay gurigii aan inta badan nolosheeda ku qaatay. markii waagu baryay waxaan gaariyey boosteejada tareenka. ma aanan haysan lacag aan tikid ku gato, sidaa darteed waxaan qorsheeyey inaan si qarsoodi ah tareenka u fuulo. intii aan fuulayay nin waayilaya dib ii qabtay. isagana wuxuu safarka ku galayay tikid la'aan. wuxuu ii sheegay inaan sugo ilaa uu tareenku ka dhaqaaqo, haddii kale waa la ii qaban lahaa. si dulqaad leh ayaan u sugnay inta uu tareenku ka dhaqaaqayay. kadib markii uu dhaqaaqay ayaan orod bilownay. khibradiisii awgeed fuulista tareenku waa ii fududaatay. shaqaale boosteejada jooga ayaan ku sugtay inuu na qabto, laakiin si guul ayaan tareenka uga booday. maadaama aan habeenkii oo dhan seexan, isla markiiba waan hurday. markii aan soo toosay waxaan arkay ninkii waayeelka ah oo sameynaya dhaqdhaqaaqyo yaab leh. waxaan weydiiyey waxa uu sameynayo. wuxuu ii sheegay inay ahayd wax hooyadii bartay. wuxuu yidhi maalin kasta roob iyo qoraxba waa inaan uga mahadcelinaa waxyaabaha yaryar ee nolosha, haddii kale weligiin si dhaba uma qadarin doono waxa aan helno. kadib isagoo dhoola cadeynaya ayuu yidhi hadda waxaan haystaa wax aan ugu mahadceliyo. waxaan gaarnay Texas. Texas waxay ahayd meel aan aqoon, balse waxay noqotay bilow cusub oo nolosheeda ah. wax yar kadibna waxaan arkay rag shaqo u socda. waxaan dareemay inay jirto fursad lacag lagu samayn karo. sidaa darteed isla markiiba waan raacay. nimankii waxay i geeyeen beer oo milkiiluhu u baahnaa 6 shaqaale oo deer dhisa. waxaa jiray dad badan oo shaqada doonaya. sidaa darteed waxaan isku dayay inaan dadka ka dhex muuqdo. si aan guusheeda u gaarin wax walba waan u samayn karaa. si kalsooni leh ayaan milkiilaha ugu sheegay inaan qaadi karo 50 rodol oo barafa ilaa 3 dabaq. si aan u caddeeyo nin shuluq ah ayaan isku dayay inaan qaado. hadalkayga wuxuu ka qosliyey milkiilaha beerta, balse wuxuu jeclaaday dadaalkayga wuxuuna go'aansaday inuu shaqaaleysiiyo. shaqadan waxay ahayd in tiirarka deerka dhulka lagu qodo. maadaama jirkaygu yaraa, shaqadu aad bay igu adkayd. nus maalin shaqo adag kadib waxaan ku guulaystay inaan hal tiir dhigo. nasiib daro mid ka mid shaqaalaha ayaa si fudud u riday, sababtoo ah si sax ah looma dhisin. waxaana noqday qof lagu qoslo oo lagu jeesjeeso. halkii aan quusan lahaana waxaa noqday mid sii adkaysta. intii dadka kale ay nasanayeen, anigu waxaan sii waday xoojinta tiirarka dayrka. dadaalkayga dareenka ah wuxuu soo jiitay nin dhalinyaro ah oo markii hore uu qoslayey. wuu ii yimid wuxuuna ii keenay biyo aan cabo. maadaama aan isku da' ahayn, si degdeg ayaan saaxiibo u noqonay. intii aan wada shaqaynaynay waxaan ogaaday in magaciisu yahay Gaas. Gaas wuxuu ii sheegay inuu kasoo jeedo qoys dabaqada dhexe ah. 2 sano ka hor qalalaase dhaqaale ayaa sababay in bangigu uu la wareego dhulka qoyskiisa. si adag ayuu u shaqaynayay, sababtoo ah wuxuu ku riyoonayay inuu maalin un bangiga iibsado si uu u soo ceshto hantida qoyskiisa. sheekadiisa si qoto dheer ayay ii taabatay. waxaanan lahayn himilooyin aad isku dhow. taasi darteed saaxiibtinimadeenu way sii xoogeysatay. shaqada kadib waxaa ku laabanay hooygii shaqaalaha. qolka waxaa ka buuxay shaqaale kaarar ciyaara oo faraxsan. halkii aan ku biiri lahaa, waxaan si degan u fariistay anigoo wax ku qoraya buuggayga xasuus qorka. markii dambe waxaan u tagay milkiilaha beerta waxaana weydiiyey sirta guushiisa. milkiiluhu wuxuu qadariyey himiladeyda, wuxuuna ii sheegay inaan fariisto. wuxuu sharxay in dadka guulaysta aysan dadka kale u daba socon sida ido. wuxuu yidhi waa inaan noqdaa hogaamiye, qofka dadka hogaamiya. hadalladiisa way i dhiirigeliyeen, waxayna i siiyeen fikrad cusub. waxaan heshiis u soo jeediyey milkiilihii beerta. waxaan weydiiyey haddii lacagta la badbaadiyo la isiin karo gunno haddii aan shaqada waqtigeeda ka hor dhammeeyo. milkiiluhu wuxuu jeclaaday kalsoonideeda, balse wuxuu ka shakiyey inay suuragal tahay. As a bonus? I do like you, son. Ain't gonna happen. We'll see.
subaxdii xigtay shaqaalihii way waayeen, waxay u maleeyeen inaan baxsaday sababtoo ah shaqadu way adkayd, laakiin markii goobta shaqadu yimaadeen way yaabeen. Habeenkii oo dhan ayaan shaqaynayay anigoon istaagin. Sidoo kale waxaan sameeyay nidaam shaqo oo degdeg badan. 6 shaqaale waxaan u qaybiyay 2 kooxood oo min 3 ah. Qof ayaa cabirayay oo godadka qodayay, qof kale ayaa tiirarka gelinaya godadka, qofka kalena wuxuu aasayaa ciidda oo siliga ku rakabaya. Habkaas silsilada shaqadu wuxuu si weyn u kordhiyay wax soo saarka, maadaama qof walba lacag si degdeg ah u heli karo. Shaqaaluhu si farxad leh ayay qorshaha u raaceen. Annagoo wada shaqaynayna waxaan hal maalin ku dhameynay shaqo caadiyan 3 maalmood qaadata. Subaxdii xigtay milkiilaha beerta ayaa yimid si uu shaqada u eego. Aad ayuu ugu farxay natiijada. Wuxuu bixiyay mushaharkii dhammaan shaqaalaha. Tan ugu muhiimsan, wuxuu fuliyay balantiisii, wuxuuna i siiyay lacagtii la badbaadiyay oo gunno ahaan ah. Waxaan imid hal maalin ka hor, qofna ma aaminsanay in arrintaasi suuragal tahay. Masinid aqligeygii iyo dadaalkeygii awgeed waxaan helay lacagteedii ugu horeysay, mana aan qorsheynay inaan qarash gareeyo. Halkiina waxaa qayb ka mid ah lacagta u diray guriga si hooyada daawo ugu iibsato. Markii aan lacagta diray waxaan isweydiiyey tallaabada xiga ee aan sameyn doono. Markaasna nin ayaa si lama filaan ah u soo baxay oo jawaabta i siiyey. Suunka dhalaalaya ee uu xirnaa ayaa markiiba indhahayga qabtay. Waxaan u degdegay dhankiisa oo aan weydiiyey sirta lacag samaynta. Wuxuu ii sheegay in Texas ay ka buuxaan fursado, wuxuuna ii yiri guushu waxay ku xiran tahay inaad ka faa'iidaysato fursadahaas. Isla markiiba waxaan fahmay inuu ka hadlayo shidaalka. Markuu arkay inaan fahmay wuu dhoola cadeeyay waa uu iska tagay. Hadalkaasna wuxuu sii xoojiyay go'aankayga. Kadibna waxaan ku biiray ciidanka, waxaana ku dhawaaday inaan ku dhinto goobta dagaalka. Nasiib wanaag gaas ayaa waqtigii saxda ahaa yimid oo badbaadiyay. Wuxuu ii qaaday meel ammaan ah wuxuuna daaweeyay dhaawacyadeyda. Sidaas ayaan nolosheyda ku badbaaday. In ka badan 10 sano ayaa sidaas ku dhaafay. Markii aan ciidanka ka baxay, waxaan lacagtii aan keydsaday ku iibsaday mashiinkii qodista ugu qaalisnaa. Waxaan qoday 10 mitir balse hal dhibic oo shidaal ah ma aanan helin. Shaqaalahaygii rajadii way waayeen waa ayna iga tageen. Maalintii xigtay waxaan shaqaalaysiiyay qabiir dhulka bartay. Markuu dhulka baaray kadib, wuxuu ii tilmaamay meel gaar ah oo uu yiri halkaas ka qod. Markii aan meesha qoday, rajadii ayaa ugu dambeyn soo baxday. Waxaan helay shidaal. Markii aan guriga ku noqday anigoo shidaal madow igu dharooban, xaaskaygu si adag ayay hab ii siisay. Wasaqdi xitaa danka ma gelin. Fuustada shidaalka waxaa lagu iibinayay $2. Beerteeda hoosteeda waxaa yaalay ku dhawaad 50 milyan oo fuusto oo shidaal ah. Faa'iidada weyn waxay soo jiidatay masiirkii shaqaalihii hore ii shaqaalaysiin jiray. Wuxuu isku dayay inuu maxkamad i geeyo oo beerta iga qaato. Anigu si taasi ma aqbalaynin. Waxaan ka raadiyay buugga telefoonada qareenkii ugu samcada badnaa ee Howard Law School. Maalintii dacwada dad badan ayaa ku jeesjeesay sababtoo ah wuxuu ahaa nin madow. Anigu taas dhig uma dhigin waana soo dhaweeyay. Qareenkuna wuxuu muujiyay sida uu u aqli badnaa. Hal jumlad ayuu dacwadiiba ku guuleystay. Wuxuu cadeeyay in muranku dhacay 2 sano ka badan ee ka hor. Waqtigii sharciga ogolaana uu dhamaaday. Dacwadii waa lagu kala tagay. Intaas kadib waxaan John u shaqaalaysiiyay inuu noqdo la taliyaha sharciga ee shirkadeyda. Isagoo ila jooga ganacsigaygu si weyn ayuu u kobcay. Mashiinadeedii qodistan waxay ku fidayeen beerta oo dhan. Markii ceelal shidaal badan la helay, suuqii cariiri ayuu noqday. Sidaa darteed waxaan go'aansaday in anigu sifeysto shidaalka oo aan dhisto silsiladeeda ganacsiga. Waxaan watay John si aan uga wada xaajoono iibsashada warshad sifeyn shidaal oo dhibaataysan, laakiin milkiilihii ma jeclayn habdhaqankayga wuxuuna dib u dhigay heshiiskii. Wuxuu igu ballamiyay hotel, balse maalmo ayaa dhaafay iyadoo wax jawaab ah la waayay. Christmas ayaa soo dhawaanaysay. John wuxuu rabay inuu guriga tago. Wuxuu iga codsaday inaan la socdo. Waxaan ku iri kaligaaga tag. Isla subaxdaas milkiilihii warshadda wuxuu la yimid heshiiskii. Waqtigaasna waxaan si rasmi ah u noqday bilyaneer. Riyadeedii waan gaaray balse cid ila dabaaldegtay ma aysan jirin.